14 Febraayo maalin aan maalmaha kale waxba dheerayn balse ku dayashada gaalada ay inugu sababtay in aan dabaaldegno anagoo hiddo dhaqan iyo diinba u lahayn haddaba maalintaas magaca jaceylka libis ee ku gambato looga dhigay xagay ka imaatay maxaana ku hoos qarsan ku soo dhawaada muuqaalkeena afar iyo 10 Febraayo maalin ku suntan dadka heesta Kirishtaanka maalmahaas oo ay dhaceen falal lagu qaarijiyay dadkii ugu caansanaa kuwaas oo dhamaantoodba ka mideysnaa magaca Valentine iyo taariikhda 14 Febraayo oo ahayd xilligii la dilay madhabta Kaatooliga ayaa ku qoran in bilowgii Kirishtaanka ay jireen 3 bishops kuwaas oo saddexdooda magacba ay ahaayeen Valentine mid waxa uu ahaa baadariga Roma midna waxa uu ahaa baadariga magaalada Terna ee isla dalka Talyaaniga kada Valentine waxa ay aad u sii faaftay markii la ogaaday in madhabta Protestant iyo Kaatooliga in ay iskaga mid ka yihiin taariikhda raggan ka hor miilaadiga 270 waxa jiray boqor Roomaan ahaa oo la dhihi jiray Claudius-kii labaad kaasoo dhalinyarada wiilasha ah ee askarta ah ka mamnuucay inay guursadaan isagoo u arkayay haday guursadaan in aysan dagaal gali karin haddaba waxa jiri jiray baadari Kristaan ah kaas oo lagu magacaabi jiray Valentine isagoo dhalinyarada askarta ah ugu guurin jiray si qarsoodi ah ugu dambeyn waa la ogaaday waana la xiray xabsiga waxay isku barteen nin gabadhiisa ay indhaha la dahay waxa uu ka codsaday in uu keeno kuwaas oo markii dambe isguursaday ugu dambeynna waxa ogaaday baadarigii oo ku amray in la daldalo waxa la sheegaa ka hor intaan la daldalin in fariin sagootin iyo jaceyl ah oo u reebay jaceylkiisa waxaana ugu dambeyn la daldalay 14 Febraayo 270 miilaadiga iyadoo la xusay saddexda nin ayaa Pope Gelasius oo ahaa madaxa guud ee Kirishtaanka magaalada Roma ayaa xusay markii ugu horeysay taariikhda ay ahayd 496 una bixiyay magaca ay maantay wataan ee Valentine Day isagoo markii dambe jideeyay in la xuso sanad walba 14 Febraayo haddaba taariikhdan inaga ka muslim ahaan nama qusayso waxaana ceeb inoogu filan in rag Kirishtaan ah geeridooda aan xusno inagoo ku andacoonayno in ay tahay maalinta jaceylka oo maalmaha kale oo sanadka oo dhan maxaa ka dhigay maalmaha naciibka وكان شيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون وإن حسوسنا هذا الكي رسولك صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بنقول سنة دتي دي كو ريبا راعي دونتا تاكا تاكا يدودون باو راعي دونتا بنقول مرة سأولي بحديث كاقدرنا وحليه هذا قالان حجر ضب قد مسلوغلي يرير با jirto godadka gasha god masluugulay haday galaan waa ka daba galaysan godka masluugulay waa wax sida waag waa meel yaro madow oo ciriiriyo god masluugulay in la galaamo wax macno ku jira xadiidku wuxuu tilmaamaya wax bila macna haday sameeyaan waa ka daba sameyn doontaan marka weeyaan ninkii god masluugulay galay oo waa iyaba la yidho al-yahuud wa nasara ba lagu yidhi oo yaa kale buu ku yidhi marna waxa la yidhaa ar-rus wala furus faman yaa kale دائما كواجدك مسلوق لي بقى صعد أنا ورث كداي يعني فلانتين كان يوم على شيء جيسان وجدك مسلوق لي ده ونقول لك هذا الكلام وكذا وقلت